بسم الله الرحمن الرحيم session keena maanta wuxuu ku saabsan yahay oo aan ku baran doonaa sida joomlaha loo install gareeyo loogu install gareeyo local host waxaan eegaynaa joomlaha marka aynu install gareynay sida configuration kiisi loo sameeyo waxyaabihii u baahnaan loogu sheegayo sida website-ka aad sameynayso macluumaadkiisa joomlaha administrator username-ka iyo password-kiisa database-ka uu ku xirmayo noociisa iyo hostname-ka cidda host garanaysa iyo hostname-ka waxaan uga jeedaa nacam computer-kaaga ku jira website-ka aad database-ka aad ku sameynayso website-ku mise wuxuu ku jira tusaale ahaan kale web hosters-ka sida bluehost-ka iyo siteground-ka iyo kuwaas oo kale waxaan configure garanaynaa kale user-ka iyo password-ka uu isticmaali doono database-kaasi waxaan dabeetay isku dayi doonaa inaynu joomlihii aynu install gareynay folder kamid oo la yiraahdo installation folder oo la isticmaalo oo kaliya inta installation aynu meesha ka saarno dabadeed waxaynu eegi doonaa joomlihii aynu setup gareynay aynu configure gareynay aynu install gareynay in aynu markaa gali karno administration site-kiisi haddaba intayna hawshaas oo dhagelin waxaad iska hubinaysaa wanagii session-keenii hore joomlaheena ku install gareynay folder la yiraahdo Somali Jobs folder-kaasi ama joomlaha aynu xagga ku shubnay waxa uu shaqeynayaa kaliya wanaga niri hadii WAM server-kaagu uu yahay online marka intaanad ka galin waxaad iska hubinaysaa WAM server-kaagu online ma yahay local host-ka halkee lagu qorayaa browser-rada aad haysato ku doonaha noqdo ayuba local host lagu qorayaa kan wax weeyaan folder-kii aad joomlaha gelisay hadda magaca uu doonaha qaatay si aan hadaba u hubino inuu WAM server-ka online yahay waxaan sameeynaa waxaan tagayaa halka area task bar-ka ee saacada u dhow ayaan WD ka eegayaa WD uu lahaa web server-ku sida hadda inoo muuqato ma aha running meesha ma yaalo sidee loo soo kicinayaa halka ay ku qoran tahay start ayaa waxa lagu qorayaa marka WAM waxa ku soo baxaya marka start WAM hadii uu ku install gareysan yahay ka markaad ku dhufato halka waxa ka soo baxaysa muuqata WD WAM ku lahaa haddaad dul geyso waxa ku qoran WAM server online that means hadda waa running marka hadda markuu running yahay ayaad gali kartaa marka Somali Jobs-kii sidaan u galayaa marka waxaan tagayaa marka start browser-kayga aan haystay baan soo furaya halkaas marka waxaan ku qorayaa markuu browser-ku ii soo baxo address bar-ka ayaa waxaynu ku qori doonaa local host slash baan raacinaya slash taa wixii ka dambeeya waa hadda magaca folder-ka aad joomlaha ku shubatay inta markaad samayso waxa leedahay marka folder-kii baad u sheegaysaa dabada enter baad leedahay waxay noo soo kacaya marka WAM server-keenii folder-kii joomlaha ahaa ee uu noo hayay waxaanu galeynaa marka hadaba configuration-kiisi sidee loo configure garanayaa hadaba waxa loo configure garanayaa number 1 waxaan u sheegaynaa site-kan aynu sameeynay joomlaha lagu sameynayo yaa loo sameeynaya waxa loo sameynayaa Somali Jobs ayaa loo sameynayaa description-kii website-kaaga aad gelinaysaa macluumaadkii baan geliyay inta markaan geliyo qasab maaha maadaama oona asterisk-taasi aanay kan saarnayn wixii asterisk tu saaran tahay unbaa qasaba halkaan waxaan gelinayaa email-kii admin email-kii qofka administrator-ka uu isticmaalayay haddii in case password-ka uu iloobo si loogu soo diri karo waxaan halkaan gelinayaa isagana ku xigta admin user-kii maxaan ku gelayaa joomlaha administration site-ka waxaan leeyahay waxaan ku gelayaa Somali password-ka maxaad ka dhigaysaa password-kaagu had iyo jeer waa inuu ahaadaa mid strong ah way hadii laga xado ama uu si kaaga dayacmo cidii hesha marka site-kaaga dhaway fariisinaysa waxaan qorayaa marka password-kaygii oo capital iyo numbers iyo dhibic ka kooban waxaan ku xigsiiyay password-kii baan ku celiyay haddana inta markaan saa u sameeyo halkan su'aal baa inoo taala ma laha joomlayaashii hore ma lahayn laakiin 3.0 ayuunbaa su'aashan soo kordhiyay miyaad doonaysaa site-kaagu inuu offline noqdo nacam ma waxaad doonaysaa website-kan aad sameynaysaa inuu public-ga u noqdo mid ay soo gali karaan marka ay computer-kaaga marka la fadhiyo mise waxaad doonaysaa inuu noqdo offline oo
inaad dadka ka xidho maadaama oo aad dhisayso inta la dhisayo marka labada option ba adiga had iyo jeer doonaya ka doonto dooran kara waxaan leeyahay marka no waxaanu sameynay magacii website-kan u sheegnay description-kii baynu siinay email-kii admin-kaynu u sheegnay waxaanu u sameynay user-kii lagu gelayay joomlaha oo Soomaali ah iyo password-kii oo ku celiyay inta markaan sameeyo waxaan doonayaa naga system-ka inaan u gudbo si aan ugu gudbo waxaan oranayaa marka next alright password-ka aan ku celiyo waxa laga yaabaa password-ka ay wax ka khaldan yihiin waxaan leeyahay marka next alright marka labada password ba had iyo jeer waa inay isku mid noqdaan inta marka aan sameeyo database tab-kaygu waa MySQL host name-kaygu waa localhost halka maxaa localhost looga dhigay because joomlahani waxa uu ka soo dhex kacayaa C drive-kayga waa aniga halkan dhex dhiganay warm server-ka waa aniga dhex dhiganay www-ga dhex geynay halka dhiganay maaha site-ku kuma xidhna web server kale meel kale yaala laakiin waa localhost waa computer-keena halka marka localhost baan ku qoray okay username-ka uu leeyahay database-kaagani inagu waxaan iska isticmaali doonaa database symbol oo meesha iskaga jira marka had iyo jeer username-ka waxaad gelinaysaa inta root ayaa lagu qoray halkaas aad tagaysaa waxaad leedahay database-ka username-kiisu waa root password-ka had iyo jeer root-ku waa blank wax password ma laha waan iska dhaafaya marka database name-kan isticmaalaya waa mid ku jira meesha la yiraahdo _GOS si database-kaasi inuu jiro iyo in kale aan u hubiyo waxaan tagayaa halkaas aan ku dhufanayaa waxaan warm server-keeni ayaan click siinaya waxaan galayaa marka php my admin-ka dabad anu kan imika aanu isticmaalayno database-kan choose aanu isticmaalayno waa mid symbol ah oo iskaga dhex jira marka warm server-ka php admin-kiisa marka si aan u hubino halka marka aynu soo galno waxaanu arki doonaa marka choose-kii halka inoo yaala waa _choose kaasaynu isticmaalayno database name-kii _choose markaad u sheegto wax space-ha raacinin oo space-ku haddii kale waa dee magac buu noqonaya marka space-ka masax kana sidiisaan u daynayaa halka all database process-kii wixii ku jiray database-ka miyaan backup garayo iska dhaaf inta marka aad samayso waa gudubtaa marka halka waxaynu gelinay localhost hadhow halka waxa la gelinayaa haddii aad website ku xidhayso kale online host server-ka cidda ka iibisay hosting space-ka ayaa halka lagu qoray hadiya jeer waxaan u sheegay username-kii root oo kaasa password ma laha database name-ku waa _choose inta marka aan sameeyo waan ka gudbayaa waxaan doonanayaa marka next then step-kii u dambeeyo finalization aba nimid oo overview-giya nacam waxyaabaha aad soo samaysay overview-ga hoos hadaynu u soconno waa waxyaabaha aynu soo install garanaynu soo sheegnaba ku qoran waxba laga dooran maayo waxaa ka mid ah site name-kii description-kiisii site-ku ma offline ba mise waa online no baynu nacam waa live site-ku email-kii wixii oo dhan baa halkaa siinaya marka halka markaad saa u samayso miyaad doonaysaa in lagu shubo sample data had iyo jeer waa la iskaga shubtaa nacam waa templates design garaysan miyaad doonaysaa inaad ku shubato daatadoodii waxaad leedahay ku shubhaa waxaan dooranayaa markaa kaasoo kale aan dooranaya block sample datahaasoo kale intaa markaan saa u sameeyo waxaan leeyahay markaa install configuration-adii iyo macluumaadkii aan soo sameeyey wuxuu markaa install garanayaa markaa sidaad arkayso macluumaadkii aynu u soo sheegnay dhammaantood wuxuu kuu sheegayaa markaa in la install gareeyey joomlahaagii laakiin hal step baa inoo hadhay oo ah in folder-kii la odhan jiray installation folder-ka installation-ka uun caawinayay in laga saaro joomlaheennii si uu inoogu shaqeeyo kaana si aan u sameeyo waxaan ku dhufanayaa markaa remove installation folder kaa markaan ku dhufto wuxuu masixi doono markaa folder-kii waxaan kuu sheegaya in laga saaray sida haddaba aad la socoto website-keenu waa laba qaybood waa qayb administrator ah oo qofka webmaster-ka ah uu ka maamulayo iyo qayb site ah oo had iyo jeer dadka public ah ay soo galayaan haddii aad doonayso markaa in labada la kala isticmaalo si uu hadda kuu geeyo waxaad ku dhufanaysaa markaa site
waxaad arki doontaa markaa joomlahaagii ama template-kaagii joomlaha oo ready ku ah oo diyaar ku ah markaa inaad ku shaqayso oo aad isticmaasho session-keena ku xiga kan waxaanu eegi doonaa markaa sida loo gelayo administration side-ka iyo sida markaa macluumaad fara badan loogu gurayo markaa website-kaagii. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.